munaasabadan oo ka qabsoontay xarunta dugsiga Abuureere ee magaalada Hargeysa ayaa wararba madashaasi waxa ka hadlay maamulaha dugsiga Abuureere Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo ka warbixiyay ujeedada munaasabadaasi iyo ardayda kala duwan ee loo sameeyay. ardaydaasi waxay isugu jiri doonaan insha Allah biidnillah arday aynu xusi doono oo markaas sagaalka fasalba ah kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad sidoo kale ardaydii waxa weeye aliflayaasha ugu wanaagsanaa waxaan meesha ka reebanayn inaan iyadana xusno awal hore waxa weeye waxay inoo ahaan jirtay ardayda waxaanu siin jirnay sagaalka fasal ee iskuulkeenu ka kooban yahay ardayga kaalinta u gala ayaynu siin jirnay scholarship siin jirnay hadduu rabbi idmayo waxaynu ka dhigaynaa kaalintaas si loo tartamo adduunyadu waa tartan intaasi waa waxa weeye maanta ujeedadeena iyo xafladeenu daaran tahay waxa kale iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kamid ah macallimiinta dugsiga Abuureere waxaanay ku dheeraadeen ahmiyadda aqoonta ay leedahay iyo sida bulshada wax uga bedesho waa natiijo waa wixii ka soo baxay sanad dugsiyeedka qaybtiisii hore ama waxa weeyaan teeramkii hore ma yada aqoontiyo cilmigu waa mas'ala weyne mas'uuliyadna weeye ciyaar haw malaynina dhaxalna kuma soo meeri karo barasha mooyaane muwaahibana maahe dadaal midhihi weeyaane waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa marka hore ardaydaasi ku guulaystay kaalmaha wixii loo dhigay ee lagu dadaalay waalid iyo macallin iyo maamulna si xaqiiqa uga dhab keenay waxa idinku jira mustaqbalkii Soomaaliland waxa idinku jira mustaqbalkii ummadan mustaqbalkiina oo dhan wuxuu noqon doonaa mustaqbalka haddii loo wada noolaado in la istixgeliyo Sheekh Hawlibaha oo ka tirsan wasaaradda diinta iyo qaafta isla markaasina ku hadlay afka waalidiinta ayaa ka warramay qiimaha macallinku ku dhaxleeyahay bulshada dhexdeeda waalidku Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku beeray qalbigiisa naxariista ku jirta tul la koobi karaya maaha ilmihiisu hadduu guriga joogo qalbigiisa uu la shaqeynaya waa buu la joogaa hadduu ka maqan yahayna qalbigiisa buu ku dhex nool yahay uu la shaqeynaya kalidiin inuu haddii ismoodaysan maaha waalidka dardaarankiisa marka la qaato muallimiintana cilmigooga la qaato qofkaasi ma hogoobayo mana habaabayo mana halaabayo kolka waalidku waa inuu ku dadaalaa inuu noqdo ku ka farxiyo waalidkiisa iyo muallimiintiisa iyo mujtamaciisaba agaasimaha dugsiyada gaarka ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Muuse Maxamed Shiro halkaasi ka hadlay ayaa isna baliyo u diray maamulka dugsiga isla markaasina waxa uu ardayda kala dardaarmay waxyaabaha waxbarashada ka lumiya ardayga oo uu ka tilmaamay arrimo doora madaxiina lagu farxaya wajigiina lagu farxaya labiskiina lagu farxaya mala as-sanabil yanhani bitawadu' والفارقات رؤوسهن شوامخ مدح هاروركا ee buuxa u soo foorarsada isagoo uga jeeda hanbalnimo ama tawaaduc oo kale igooso kaan waxba ku jirin waa mid yuubana sida u baxa wal faariqaati ru'usuhunna shawaamikh waxa weeyaan kow waxa eegashada leeyahay waa nooc min al-jaraasim oo gala maskaxda oo ka qaado qofka kalsoonida culimada maskaxda darista waxay yiraahdaan hadaad gurigaagii soo xidho markaad yar socotaa islaam Soomaad qufulin nooc waalida kamid ah ku jirta haddii marka adoo dadaalayo wixii wada hayaad istaadin malaha taahib alquraya sixitaada yani waxba ka dalma noocaas aad qabtaa horta ogow taasi aynu la dagaalano ka fogow eegashada gabagabadiina waxa madashaasi shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyay xubno kamid ah maamulka macallimiinta iyo ardayda kala duwan ee dugsigaasi qaarkood